tababarkan socday muddada 5 maalmood waliba ay ku yoobiyayaan macallimiin heer qaranee waliba la siiyay garsooryaalkii maamulo jareen ciyaaro magaalada Baydhabo saasoo kale tababarkan waliba barbar dareeray imtixaano lagu qaaday garsooryaal cusub oo qayb ku nagada doona garsoorka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya munaasabada tababarkan la kihiray waliba goobroogyo ku hayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaro maamulka gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo Mexico waliba uu qayb ku hayay garsooryaalkii la siiyay tababarkan waliba uu ku warbiyay walaayo ku baradan tababarkan ayaan noogaadi imtixaankii iyadaan ka guuleysnay alxamdulillah madaxda gobolka iyo degmada Roogan may roogay gudiga sportiska degmada Roogan goobjooga ku hayaan imtixaankii la qaaday hiraabna seminaarkii hiraabti la gala mastabarkii hiraabti la gala 7 saac ku bahani asarkina may seedanay fieldiga seedani mis garoonka seedani meelo tababar la qaaday shalay aan ka dambeeyay ciyaar oo lama kooxood ya la ka dhaxdhaxaadi oo dadkii tababarka garsooryaalka hata la hasaari iyo tijaabe la ka soobi marka iyadaan ka mahadnagaana Ustaad Bashiir Bootaan waliba uu qayb ku hayay macallimiinta asharka MBA koonfur galbeed Soomaaliya ka amaanay in mas'uuliyiinta iyo ciyaartoyda ahaan iskeerin isla markaasna diyaariyo in horumarada banoonka loota iyo qeybashal gedisan ee banoonka boosu ku koobanyahay oo 1988 ayaan soo bilaabay hawl garsoor 90 kadib waa markii uu horeysay oo aan arko xataa magaalada Muqdisho wasiir isboorti gudoomiye gobol gudoomiye degmo gudi isboorti agaasimayaal iyo garsoorayaal cusub oo meeshii ugu hooseysay oo la abuuray oo isku jiha u jeeda oo abaabulan oo kubadda cagta horumarinaya garsoorkeeda iyo tababarayaasheeda iyo ciyaartooydeeda arintii ugu muhiimsan marka oo aan rabo inaan sheego oo wax aad loogu farxaaya midaas ma dhacdo xataa agaasimo guud in la helo oo yimaada garsoorayaal yar oo la tababaray xataa agaasimo guud koonfur galbeed waxa u jeedaa higsigooda iyo yoolkooda meesha u socdo waa meel weyn oo qarankana anfacaysa gudoomiyaha ciyaaro ee degmada Baydhabo Axmed Cali Axmed Dollar iyo waliba uu ku mahadnaqay macallimiintii tababarkan biyayaan u soo nasaasoo kale dhiirigelin garsooryaalka cusub iyo hanuureeyay ban shaqeeyaan in cadaalad la ka dhaxanta iyo walanka faa'iideeyaan bulshada qaybo shalgadiisan iyadaan ka mahadnaqana geeka may boorto maalin farxad leh xaqiiqdii madalan feeray seminaarkan oo geeka intaan gabagabaawi oo muddo shanbare in dareeri may baa muddo badan ka taamanayo inuu gobol tababar oo garsoorka kubadda cagta ee xaqiiqdii may baahiyaalka may kumid haytay in ku weyn oo geeka Baydhabo haysatay kumid haytay may baa taas ilaahay ku soo kama hadeena ma isku lahaa wasiirka wasiirka wasaaradda sportska koonfur galbeed gudoomiyaha waan ee doga magaalada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin iyo usiina dhinaga kiisha waliba uu carabka ka dhawaye in ciyaartooyada muhiimadan ka fayl kordhinta maskaxda isla markaasna iyo meel ku saaran fikrada shalgadiisan qofka dhalinyarada iyada ka abuuras xilliyada qaar aragaas dad dhalinyaro talawaad sano keer may boo abuux dhaafay goran may boo aragaas oo baday dadkaas la mashquulina oo meelahaas ciyaaraha noocyada shaqada leen soo bina adamina unug manaqday meelahaas maskaxiyan baa meelahaas ma fi qofiya may baa manaqdo marka ciyaarta waxyaabaha may baa maskanta daawada may boo ya kamid jirka may baa daawada may boo ya kamid gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere ayaa sheegay in ciyaarta muhiimad ay in ka horeyntiba in la helo garsoor daacad Ilaahay inuu ku absado isla markaasaytana usu cadaalad la ka dhaxdhaxaadiyo igo shaqada iyo qobadaana shaqa madii la fiiriyo voluntary inuu dhank isla ogna wal kasta oo ficil misa hawle la suubiyo asaas ma aha meel raacay sharci wal sharcan lahayna may buha in shaqeeyaan ma taawiyo marka ciyaar horumar shamay ku in garsoor jar si isla ogdin hadii hada isim iswastan ciyaar oo ogtoontina oo dhiiday waana sagaalku daqiiqo nibadka dhamaatay garsoor laanga lantoonsin ka jira ciyaarta garsoor online gabal bilan la dilifada ciyaartooy wala xasaasiyad leh ciyaarta isloogna
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaro ee koonfur galbeed ee Soomaaliya oo u saahiray tababarkan iyo waliba uu sheegay in garoonka banaanka Lotte Dr. Ayub Stadium ka dambeyntii dhismidiisa la bilaabo doona bilal lixaad ee sanadkan kaasoo bulshooyinka koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan degmada Baydhabo iyo baahan qabaan in aragan garoonka weyn ee koonfur galbeed oo suroog taala tababarkii 5 maalmood ahaa waa noo xiran yahay mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa guddiga kubadda cagta degmada Baydhabo oo runtii habeenna aan ka seexanin in tababarkan la qabto oo mar walba aan kulanno igu boorinayo in tababarka la qabto midda dhismaha garoonka iyo garoomadana wasaaradda intii sano ay jirtay waxay ku howlaneed dhismaha garoomada gaar ahaan garoonka Dr. Ayub Stadium way iska jireen caqabado badan oo haystay laakiin hadda waxaan soo gaarnay marxalad gabagaba ah oo garoonka lagu dhisi doono insha Allah taala garoonkana marka ugu dhow oo bilaaban doono ugu dambeyn waxay noqon doontaa bishii 6aad oo dhismihiisa bilaawda insha Allah tababarkan waliba uu ka beegamay xilli deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya lagu dareemayo horumar dhinacyo badan taabado ee banaanka la toqosayta yoona maamulka ciyaaro ee magaalada Baydhabo iyo wadan dayactir iyo dhismooyin ka sameeyay goobooyinka sportiska ee magaalada ka taala Bishaar Miyo Mukhtaar Koonfur Galbeed TV Baydhabo